أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadeyaasha qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale shabakada At-Tawba iyo cashirkeennii afraad ee aynu uga hadlaynay tarbiyada carruurta iyo barbaarinta wanaagsan. waxaynu kusoo dhex jirnay waqtiga ay tahay in tarbiyada ama barbaarinta carruurta la bilaabo iyo sida ay tahay in loo bilaabo. waxaan cashirkii ka horeeyay aan uga soo sheekaynay in ilmuhu ay jirto xuquuq ay ku leeyihiin qof kasta ee doonaya inuu ilmo dhalo inta aanay dhalan ka hor. laba xaq oo ay muhiim tahay qofka ilmuhu intaanay dhalan in qof kastaaba ee doonaya inuu ilmo dhalaahi in uu markaa uu guto oo xuquuqdaas markaa ama labada xaq ay ku leeyihiin gudashadooda ay ka dhigan tahay waqtiga tarbiyaduba ay bilaabanayso, ilmahaagii tarbiyada ay xaq kugu leeyihiin ay bilaabanayso. waxaan soo qaadanay labadaas xaq. midka koobaad waxaynu ku sheegnay ama xaqa koobaad ee ilmuhu ay kugu leeyihiin intaanay dhalan ka hor, maadaama aad doonayso ilmahaaga inaad si wanaagsan aad u tarbiyeysid ama barbaarin wanaagsan aad ku barbaarisid, qofka ugu horeysa ee wanaagga laga doonayo inuu adiga yahay. adiga in aad noqoto qof wanaagsan oo ilmihii ay wanaag uga dayan karaan, sidoo kalena wanaag kula tacaamuli kara. la falgelidda ilmaha aad kula falgelayso waxaa ka dhalan aad wanaag kula falgelayso oo wanaaggaagii ilmaha aad ku beeraysid kula falgelayso waxaa ka dhalanaya tarbiyad wanaagsan, waxaa ka dhalanaya qudwo wanaagsan. marka waxa ugu horeyso aad ilmahaaga aad tarbiyada wanaagsan ugu horeyso ilmahaaga aad siin karto waa adigoo noqda qof wanaagsan oo ilmuhu ay wanaag kaga daydaan. wanaaggaas adigoo aad wanaagsanaataa ilmaha siyaabo kala duwan u saameynaya, adigoo kula falgala, kula tacaamulo ay kaaga daydaan, iyo sidoo kale in ilaahay subxaanahu watacaala wanaaggaas aad wanaagsanaatay ilaahay ilmaha kuugu xifdiyo, maadaama aad tahay qof markaa aakhiradiisa adduunkiisa u wanaagsanaaday, qof saalixa inaad noqoto. ilaahay wuxuu kuu xifdinayaa markaas ilmaha awlaadda aad dhali doontaba ilaahay kuugu ilaalinaya wanaaggaaga dartii, sidii ilmihii qur-aanka ilaahay ku sheegay fii suurati Maryam. Khadir iyo Nabi Muuse derbigiisii dhacayay markay toosiyeen oo Khadir uu toosiyay, Nabi Muuse uu ku yiri qaryadan dadka joogaaba na soo dhaweyn waayo na martiqaadi waayna maxaad derbiyadooda u toosinaysaa. wuxuu yiri derbigan waxaa kanzi ama kayd ugu jira laba wiil oo agoomo ah oo aabahoodu ahaa nin wanaagsan. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. aabahooda ahay qof wanaagsan dartood baa ilaahay xilliga ugu xifdinaya oo ilmaha waxay xilliga isticmaalsanayaan aabahood wanaagiisii. oo xataa culimada qaar waxay dhahaan aabahoodii toddobaad buu ahaa, oo xataa aabahoodii dhalamahan awood toddobaad buu ahaa. marka xilligaas waxay ilmahaas isticmaalsanayaan oo ay xilliga ka faa'iideysanayaan oo ilaahay xilliga ugu xifdinaya kaydkoodii ama kansigoodii. waxa ilaahay ugu xifdinaya oo waliba uu adeejiyay adoomadiisa kuwa ugu jeclaa waa wanaagga aabahood u fali jiray ama awowgood u fali jiray. idan inaad adigu wanaagsanaataa ilmaha siyaabo kala duwan bay u saameyn doontaa. idan xaqa ugu horeeyo ilmaha kugu leeyihiin waa inaad noqoto qof wanaagsan oo ay wanaag kaga daydaan, wanaagna kula tacaamula. xaqa labaad ee ilmuhu ay kugu leeyihiin intaysan dhalan ka hor waa inaad u doorto oo aad Soomaalidu waxay dhahaan wiilkaaga wuxuu kaaga baahan yahay markaad hooyadiis doorayso. hooyada aad ilmahaaga hooyada uga dhigayso ama aabaha aad ilmahaaga aabaha uga dhigayso, marka aad doorayso ilmahaaga xaq bay kugu leeyihiin inaad u doorto aabe wanaagsan oo tarbiyada wanaagsan ilmahaas in la siiyo ay waajib ka tahay, kaalinta uu ku leeyahay ka qaata, ama hooyo wanaagsan oo kaalinta tarbiyada ay ku leedahay ka qaadata. majaalaadka marka laga fiirinayo ama hooyadaas ama gabadha aad dooranayso ama wiilka aad dooranayso nolosha la wadaagayso, meesha aad ka fiirinayso ay tahay inaad ka fiiriso in cashirkan ku dhamaystiri doonaa. laba meelood ayay tahay inaad ka fiiriso ama laba mandar aad ka fiirinayso qofka aad nolosha la wadaagayso, ama wiil ahaw ama gabar ahaw. labada mandarna ilaahay waxaa diinta inaan fartay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maaragtaanina baray labada qofka aad dooranayso labada meelood laga fiirinayo. meesha ugu horeysa ee qofka aad dooranayso aad ka fiirinayso waa diinta, waa addiin. siyaabo kala duwan baa gabadhaha lagu xushaa oo gabadha aad dooranayso ama wiilka aad dooranayso siyaabo kala duwan buu kugu qanciyaa. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri tunkaxul mar'atu liarbacin, afar baa loo guursadaa hablaha: limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha. gabadhu inay maal kugu qanciso waa loo guursadaa, inay qurux kugu qanciso waa loo guursadaa, nasab wanaagsan iyo sinji wanaagsan ay kasoo jeedo waa loo guursadaa. midda afraad oo nabigu dhiirigeliyay calayhi salaatu wasalaam waa diinna waa loo guursadaa, gabadha inay diin iyo dhaqan wanaagsan kugu qanciso. wiilashana sidoo kale intaasoo kaleba waa loo guursadaa.
fadfar bidaati diini taribat yadaak, si aad u liibaanto oo adduuniya aakhira aad ugu liibaanto oo qoys baraara oo aad yacni nolol isla jeshaan, nolol kaamil ah oo lagu farxad iyo baraaro leh, si aad u hesho oo aad u guulaysato gacantaada u dhul dhacdo midda diinta la dooro nabigu calayhi salaatu wasalaam. idan qofka marka yani qofka aad dooranayso meesha ugu horeysa aad ka fiirinayso inay noqotaa diinta ay tahay qofka inaad ka fiirisana maaha qofku inuu diinta yaqaano bas, waa qofku inuu diinta yaqaano kuna dhaqmo oo dhaqan iyo akhlaaq diineed uu leeyahay, diinta kashkiisa iyo laabtiisa ka muuqato. qofku inuu diinta yaqaano kuma filan, qof dee qur-aankii yaqaana laakiin dadkii xanta oo afkiisa iyo adinkiisa aan laga nabadgelin, qof qur-aankii yaqaan laakiin salaadii aan dukanaynin, ahlu diin ma aha. diinta la fiirinayo ma aha haddii qofku inuu diinta yaqaano bis, laakiin muhiimadu waa inuu qofku diintii, dhaqankii iyo akhlaaqdiisii, qiyamkiisii oo inuu yahay qof kashkiisa iyo laabtiisa ay diintu ka muuqato. gabadha marka aad dooranayso ama wiilka aad dooranayso, wiilka laftiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu, yani wiil aad ku qanacdaan diintiisa iyo dhaqankiisa haddaad aragtaan u guuriya gabadhiina hadduu idiin soo doonto. idan gabadhuna wiilka ay xolanayso waa inay ku doorataa wiil diin iyo akhlaaq iyo dhaqan diineed lama yahay. maaragtaanay gabadhana haddaad dooranayso saddexda qodob oo kale nabigu muu xaaraantinimin calayhi salaatu wasalaam. gabadhii qurux aad ku dooran kartaa, laakiin qasaarooyinka iyo faa'iidooyinka ay leedahay gabadha inaad dhaqan aad ku doorato, yani inaad maal oo kale ku doorato ama aad qurux ku doorato, qasaarana way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. faa'iidooyinka ay leedahay, qasaarooyinka ay leedahay, qasaarooyinka badan. haddaan mid u dul istaagnayo dee waqti uma helayo, mid kasta 10 gaaro bay kale ay noqon kartaa. laakiin midda qofka inaad diin ku doorataa wax qasaaro ah ma lahan. yani gabadha diinta aad ku doorato ama wiilka aad diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan aad ku doorato, yani dhaqankaas dambe ee guurka kadib oo dhan wuxuu noqonayaa dhaqan la isla fahmo oo la isla jaan qaado biidni illah. qodobka labaad ay tahay qofka maaragtaanay aad dooranayso, meesha labaad ay tahay inaad ka fiiriso waa almaqsadu fi siwaaj. yani gabadhan aad dooranayso ama wiilkan aad dooranayso, nolosha aad rabtaan inaad dhistaan, qoyska aad rabtaan inaad dhistaan, qaabka aad rabtaan inaad u dhistaan, meesha aad rabtaan inaad ku noolaataan ma isku fahmi kartaan. yani ujeedka aad nolosha ka leedahay iyo hadafka aad guurka ka leedahay yani labadiinu ma isku fahmi kartaan oo ma isla jaan qaadi kartaan. waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah oo qasab ah qofka aad nolosha la wadaagayso haddaad diinta bis ka fiiriso, laakiin laga yaabo ujeedooyinka u jeexan iyo ahdaafta u jeexan iyo kuwa adiga kuu jeexan inaysan iskeeniba karin. maalan iyadu waxay rabtaa dhul gaaloo kale la joogaa, maalan ilmihii la dhalo in meeshaan lagu koriya iyada ka go-an, waxay rabtaa dalkan in waxbarasho fiican iyo nolol fiican ay ka helaan, halkan ay ku koraan. aabihiina wuxuu rabaa in dalka muslimiinta la geeyo, ilmuhu dhaqankii dhaqamada gaalada aysan ka qaadan. halkaaba la isku fahmo diin kastoo ay leedahay dee qofkaasi adiga qofkaagii ma. marka hadafka aad guurka ka leedihiinna isku fahmaysaan waa qasab, oo qofka qaabkaad u noolaanaysaan iyo sidaad ilmaha u tarbiyeynaysaan iyo meesha lagu noolaanayo waxaasoo dhan la isku fahmay. qof hadaf kale u jeexan yahay oo midkaaga ka duwan inaadna isfahmi karan ay u baahanto. hooyadan masalan waxaa laga yaabaa diin kastoo ay leedahay waxay doonaysaa ilmaheeda inay ka dhigto professor iyo engineer iyo maaragtaane iyo doctor iyo halkaas inay la aado. adigana waxaad doonaysaa ilmo mashaa'ikha oo maaragtaane caalim iyo faqiih iyo mufti iyo muxadith iyo halkaa inaad la aado, ilmahaagu ay sidaa kuu noqdaan baad rabtaa. imkaaniyaadka ay sidaa ku noqon lahayeen inaad ku dadaashaad rabtaa, oo ilmahaaga madraso iyo maaragtaane maraakistii diiniga ahaa iyo jaamicadihii diiniga ah xagga inaad geyso. hooyadanina waxay rabtaa sidaa ay doonayso ilmuhu sidii ay ku noqon inay ku dadaasho. idan isku qaabka aad rabtaan ilmaha inaad u barbaarisaan, u tarbiyaysaan iskuma fahmaysaan, halkaas baad ku kala tegaysaan. in badanna waan arkay hooyooyin hooyo iyo aabe ilmihii ay dhaleen dartood u kala tegay, oo hooyaduna waxay ku nooshahay yani wadamada shisheeye oo kale. ilmihii aabihii wuxuu rabaa inuu dalalka muslimiinta geeyo ama Soomaaliya keeno, hooyadiina waxay rabtaa inay meesha ay ilmuhu ku noolaadaan oo halkaa lagu koriyo, halkaa waxbarasho ay ku helaan. halkaaba la isku fahmi waayo, waa la kala tegay. maxaa keenaya guurka inuu burburo markii ilmo la dhalo kadib? waxaa keenaya isfaham darro halkaas oo kale ka timaada. laakiin marka hore qofka aad nolosha wadaagaysaan meesha aad ka fiirinayso ee labaad waa inay noqotaa qofkan isku ujeedo iyo isku hadaf ma ka tihiin. nolosha aad rabtaan inaad wada dhistaan, qoyska aad rabtaan inaad wada dhistaan, qaabka aad rabtaan inaad u noolaataan, waxaasoo dhan isku ujeedo ma ka tihiin. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu Jaabir ibn Cabdillahi al-Ansaari uu u sheegay inuu guursaday gabar markaa ka waaya aragsaneed oo garoob ahayd, oo nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam: hal laa tazawajta bikran tulaacibuka wa tulaacibuha, gabar yaroo isla ciyaartaan maxaad u guursan weyse? yani
gabar yar oo isla ciyaartaan oo isla qoqosashaan fi riwaayada Muslim tudaaxikuka wa tudaaxikuha wa tulaacibuka wa tulaacibu gabar yar oo isla qoqosashaan oo isla ciyaartaan maxaad u guursan weysay macnaha nabigu calayhi salaatu wasalaam de ciyaar iyo qoqosal muu dhiirigelinayn laakiin gabar yar oo nolosha isla fahmi kartaan oo aad isla jaan qaadi kartaan maxaad u guursan weysay Jaabir ibn Abdullah markuu guursanayay guurka hadaf iyo ujeedo ka lahaa hadafkii iyo ujeedadii uu ka lahaa gabar ay isku fahmi karaan buu guursaday sidii uu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri aabahay wuu dhintay 9 gabdhooduna ka dhintay 7 gabdhood sida riwaayadaha qaarna ay sheegaan 9 gabdhood ama 7 gabdhood oo ka dhintay aabihii yani Abdullah ibn Amr ibn Haram wuxuu ku dhintay dagaalkii Uhud marka 9 gabdhood ama 7 gabdhood oo ka dhintay waxaan ka hadii buu yiri gabdhahaas yani 7 ama 9 gabdhood mid un ayagii oo kale aynan u keeno oo waxaan jeclaystay gabar u khidmayda oo u waayeelaysa oo u shanlaysa oo maqaamkii hooyanimo ama aabinimo u qumtayna u keeno hadafkii ujeedada marka uu Jaabir ibn Abdullah uu guurka ka lahaa gabar la fahmi karta oo marka la jaan qaadi karta oo ka ogolaatay ayuu marka u guursaday hadafka ay ujeedada uu u guursadana nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiguna uu ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam idan qofka aad dooranayso bis ha ku dooran inay diin bis yani ay leedahay ka intaas inaysan ka kaafina laga yaabaa oo ma aragtaan qofka aad diinta le hadii markaas aadan isku ujeedo nolosha ka ahayn inaad ma aragtaan nolosha isku fahmi weydaan baa suurtagal ah meesha labaad marka aad ka fiirinayso waa inay noqoto qofka mandarka labaad aad ka fiirinayso qof aad isfahmi kartaan oo isku ujeedo iyo isku maqsad aad yani nolosha aad wada dhisi doontaan aad ka tihiin inay tahay waxaa jirta qiso la wariyo yani oo waa qisada isaga dhex faaftay ma aragtaan culum taariikhi sidoo kale culum tarbiya laakiin meel hadda marjac oo ah oo aan ma aragta ka akhriyo ma jirto waa qiso dabcan iska faaftay qisooyinka Soomaalidu waxa la yiraahdo amal iska ah laakiin meel hadda ay ku sugan tahay aan garanayn laakiin waan aaminsanahay qisadan oo kale inay sugan tahay marka la fiiriyo dambaadiida xeerarka tarbiyada qisadaas oo kale inay sugan tahay anigu aan aaminsanahay nin la oran jiray Najmuddin Ayub oo marka amiirka ahaa jiray magaalo la yiraahdo Tikrit ee ku taala waqooyiga Ciraaq webiga Dajjal la yiraahdo ama Tigris River amara magaaladaas wuxuu ka ahaa jiray amiir dawladii Salaajiqada ee markaas ka hoos shaqeynaysay khilaafadii Cabbaasiyiinta ayuu marka uga ahaa magaaladaas uu amiir uga ahaa nin marka wuxuu ahaa xoogaa ku weynaaday da'da doobnimada oo isagoo xoogaa weyn ayuusan guursan aduu sodomay meelaha gaaray wiil walaalkiisa marka la tari jiray Asadiin Shirako la oran jiray ayaa wuxuu ku yiri baa la yiri inuu maad guursatid markaasuu yiri gabar iisoo bata oo aan yani ku qanco ma arkin marka wuxuu u fahmay ninkan maadaama nin high profile uu yahay oo nin dadka magaalada ugu sareeya uu yahay gabar levelkiisa oo heerkiisa oo kala joogta inuu u baahan yahay wuxuu yiri bintu suldaan gabadha suldaanka oo suldaanka Salaajiqada ugu weyn oo ninka dhan oo madaxweynaha dawladda oo kala in gabadhiisa ama gabadha wasiirkiisa wasiir suldaanka gabadha u dhalay yani madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kale madaxweynaha gabadhiisa ama ra'iisul wasaaraha gabadhiisa aan kula doono markaas suura innahum la yasluhuna labaduba ima habboona labadaba dooqiga ma doonayo labadaasba laba qofood aan rabo ma yani noocaas ma doonayo marka wuxuu yiri aad darabta yani gabadha aad rabta waa cinkay wuxuu yiri waxaan doonayaa gabar hadalka si fiican u dhageyso wuxuu yiri waxaan doonayaa gabar taakhudhu biyadi ila aljanna gacantayda qabata ila aan jannada isla galno yani adduunyo aakhirada isla liibaano aakhirana isla rafiiqno aan isu dhalno islana tarbiyayno wiil geesi mujaahid ah oo islaamka u soo celiya Baytul Maqdis wiilkii islaamka Baytul Maqdis u soo celi lahaa gabar aan isu dhalno islana tarbiyayno baan doonaya yani Baytul Maqdis marka waxa haysta Saliibiyiintii oo adigu muddo 38 sano meelahaas ba haysta 492 bay qabsadeen taqriiban meelahaas xilligaana waa adigu 530 meelahaas xilliyadaas waaye marka adigu 38 sano meelahaas Baytul Maqdis gacanta muslimiinta ku jirta wax hadda ma aragtaan markaas dagaalo jihaad way socdeen laakiin xilligaas Baytul Maqdis wax hadda yani jihaad inay ku qabsadaan marka ku soo celiyaan isku day ma jirin oo meelo badan baa jihaad ka socdo qalcaad badan baa laga haystay sida waa marka Roha iyo magaalada Roha oo aan maleynay magaalada ugu horeyso Saliibiyiinta qabsadeen inay tahay uu qabsanay Imaaduddin Sanki dacni jihaadkii iyo abaabulka Imaaduddin Sanki iyo kala socday iyo ninkii ka sii horeeyay ee maaragtaan Mawduud ibn Tantakin iyo ragaas xoogaa waday markaas jihaadka iyo maaragta futuuxaadka laakiin markaas magaalooyin waaweyn oo Saliibiyiinta laga qabsado ma jirin Baytul Maqdis waxa maaragtaan waxa iska haystay markaas Saliibiyiinta
wiilkii maaragtaani u soo celin lahaa muslimiinta, mujaahidkii u soo celin lahaa baytulmaqdis, gabadhii iyo dhali lahayd oo isla tarbiyanayan baan doonaya. wuxuu marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin sheekh ah oo mashaayikhtii magaalada ka mid ah ayuu asagoo la fadhiyo oo meel oo maaragtaani guriga la joogo, gurigiisa la jooga, ayaa meel waraa'ati sitaar ah oo daaha gadaashiisa waxaa kala hadashay gabar baa sheekii kala hadashay. marka sheekii wuxuu ku yidhi, ninkii reerkii aan maanta gurigiina usoo diray ee maaragtaani reer boqortooye ahaa oo ku doonaya maxaad ku diiday? gabar markaa reer boqortooye intay wiil usoo dooneen diidda bay ahayd. waxay ku tiri yacni wiilkaasi wiil qurxan oo maaragtaani wanaag iyo quruxba u saaxiib u ahaa, laakiin nooca aniga aan doonaya ma wiilkaas anigu ma doonayo. wuxuu yidhi sheekhii gabadhiiba wuxuu ku yidhi yaa doonaysaa marka, wiil caynkee ah baad doonaysaa? waxay tiri waxaan doonayaa oo dooqayga ah nin wanaagsan, rajulun saalixun ya'khudu biyadii ila aljanna, nin wanaagsan oo gacanta i qabta ilaa aan jannada isla galno, yacni adduun iyo aakhira baan isla liibaano, jannadana aan isla rafiiqno, aan u dhalo oon isla tarbiyayno wiilkii baytulmaqdis muslimiinta usoo celin lahaa. yani waa nafsu lkalimaat, waa sidii uu maaragtaanay hadafkii u jeexnaa najmudiin laftiisii bay gabadhii sheegtay. najmudiin aad buu ugu qancay gabadhii, wuu la dhacay. sheekhii buu ku yidhi gabadhan baan doonayaa ila doon. sheekhii wuxuu yidhi gabadhan de waa iska fuqaraa ulxayi, waa qabaa'ilka magaalada degan dadka ugu hooseeya. wuxuu yidhi ayadan doonayaa ila doon. gabadhan aan isku maqsadkay isku ujeedada ka nahay, yacni hadafka noo jeexan buu iswaafaqsan yahay, ayadaan rabaa. sidii bay isku guursadeen najmudiin iyo gabadhii. waxaa laga yaabaa yani taariikhdaas inaad ama in badan maqasheen ama maaragtaan aad horeba ka fahmi kartaan. wiilka ay labadooda ku taamayeen ay heleen, waxay dhaleen oy aabbihi hooye u noqdeen ninka la yiraahdo Salaaxudiin al-Ayubi, oo aan isleeyahay hadee magaciisa haddaan ku gaabsado taariikhdiisa waa qaniyan ani taariif in la sheego taariikhda islaamka meesha uga jiro baytulmaqdis ninkii u soo celiyay muslimiinta. marka labada qofood ee isguursanaya inay maqsadka iyo ujeedada iska waafaqsan. maanta de hooyooyin iyo aabooyin sida isku guursadaan u baahannahay, waatana de baytulmaqdisna gacantii gaaladay ku jirta. marka qofka nolosha aad wadaagaysaan koow waa inay tahay qof diin u saaxiib ah, ahlu diin ah, ahlu khayr ah, oo akhlaaq iyo dhaqan diineed leh. labo waa inay tahay qof aad nolosha isku fahmaysaan oo aad ujeedada nolosha aad ka leedihiin iyo hadafka kuu jeexan iyo hadafka u jeexan oo iswaafaqaya, ama midka adiga kuu jeexan qof de kula fahmi karto kugu waafaqaysa. labadaas qodob ayay tahay qofka aad dooranayso inaad ka fiiriso. marka casharkan intaas ayaan kusoo koobaya. asal allah tacaala an yajcalna hada liqaa fi miisaani xasanaatina ajmaciin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.